hadal jeedintu waa mid ka mid ah xirfadaha ugu waaweyn ee madaxdu horseedi kara inay ku kasbadaan kalsoonida shacabka isla markaana uga dhaadhiciyaan hadba waxay doonayaan oo ay ka mid tahay in la doorto waa xirfad jaamacadaha iyo macaadada lagu barto buugaag badanna laga qoray sidaa darteed la yaab ma leh in madax badani ay waqtigan casrigeeda heen la joogo ay ku wanaagsan yihiin jeedinta khudbadaha marka ay taagan yihiin fagaarayaasha ay dadka badan isugu yimaadaan balse Soomaaliya waxaa dhawaan hadalhayn badan dhalisay khudbad u jeediyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya taasoo la sheegay inuu ka soo miinguuriyay khudbado ay hore u jeediyeen madaxda adduunka waxaa la sheegay inuu soo miinguuriyay hadallo hore ay jeediyeen madaxweynayaashii hore oo uu ka mid yahay John Kennedy iyo madax kale waxaa baraha bulshada aad loogu faafiyay muuqaalkan isbarbardhigga lagu sameeyay hadalkii caanka ahaa ee Kennedy uu jeediyay ee ahaa ha isweydiin waxa ay dawladda Mareykanku ku qaban karto ee isweydii waxa aad u qaban karto dawladda Mareykanka waa kan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo af Soomaali ku oranaya reer galmudug waa inay isweydiiyaan ma aha dawladda Soomaaliyeed maxay noo qaban kartaa kaliya waa inay isweydiiyaan annaguna dadka Soomaaliyeed maxaan ku tari karnaa maadaama aan taariikhdaas leenahay. And so my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. khayre wuxuu xigashadan ka sheegay socdaal uu ku mareeyay gobolada dhexe gaar ahaan gobolka Galgaduud hadalkan kaliya ma aha khayre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxyaabaha uu matalo sida ay dadka wax falanqeeya qabaan xitaa habdhaqanka ku soo bandhigo fagaarayaasha ayaa la aaminsan yahay inay yihiin kuwa matalaada xitaa haddii aad u fiirsato waxay u egyihiin kuwa madaxweyne Barack Obama tusaale ahaan orodka iyo ruuleynta khudbadaha iyo ficilada gaarka ah ee ay sameeyaan hogaamiyaasha adduunka sida labiska waxay galaan diiwaanka dhacdooyinka adduunka balse waxaa la isweydiinayaa inay jiraan waxyaabo gaar u ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo u galaya diiwaanka sanadkii 2016 xaaska madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn loogu fadhiixiyay kadib markii ay si toos ah u soo miinguurisay khudbad ay jeedisay Michelle Obama oo ah xaaska madaxweynaha hore Mareykanka Barack Obama tanna waxa ay keentay in shaqadii laga eriyo qofkii khudbadaasi qoray. My parents impressed on me the values that you work hard for what you want in life. That your word is your bond. That your word is your bond. That you do what you say you're going to do. And you do what you say and keep your promise. That you treat people with respect. With dignity and respect, even if you don't know them and even if you don't agree with them. madaxweyne Obama iyo ku-xigeenkiisii John Biden ayaa labadaba ka mid ahaa dadkii hadaladooda la miinguuriyay hase yeeshee waa iska caadi in erayo ama xigmado laga soo xigto madaxda iyo dadka kale ee caanka balse ay qasab tahay in iyaga loo tiriyo ma yara dhacdooyinka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya khayre ku saabsan ee la barbar dhigay kuwa madaxda kale ee adduunka waxaa xitaa jira sawirro aad u faafay oo muujinaya habka loo sugo amniga ra'iisul wasaaraha oo la barbar dhigay kan hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa noqonaya shakhsiga loogu mutaabacayn badan yahay madaxda Soomaalida iyadoo aad loogu fiirsado lagana falceliyo waxyaabaha uu faqarayaasha ku soo bandhigo haddii ay ahaan lahayd qaabka uu hadallada u jeedinayo labiskiisa iyo ficiladiisa kale fadlan haddii aad doonayso inaad la socoto wararkeena iyo barnaamijyadeena subscribe saar barteena YouTube-ka ee Rad Production si aad ula socoto wararkii iyo macluumaadkii ugu dambeeyay caalamka.